Maamulka xarunta dadka naafada ee degmada Dharkiinley ayaa baaqo diray dadweynaha hay'adaha gargaarka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Maamulka xarunta ayaa sheegay in xarunta ay ka diiwaan gashan yihiin in ka badan 400 oo qofood kuwa oo ay haysato dhibaatooyin kala duwan. Mid ka mid ah dadka xarunta ka tirsan ayaa sheegay in laga takooro ka qaybgelinta mashaariicda gargaarka, horumarinta waxbarashada, xirfadaha gacanta loogu shaqeysto iyo fursadaha shaqo oo aan dadka laga qaybgelin. Ugu dambeyntii, dadka naafada ee xarunta Allamagan ee degmada Dharkiinley ayaa baaqo diray hay'adaha gargaarka, shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya inay ka caawiyaan daryeelka iyo horumarinta dadka naafada Soomaaliyeed. Dhibaatooyinka ay qabaan naafada ku nool degmada. Naafada degmada ku nool tiradoodu waxay kor u dhaafaysaa 350 ilaa 400. wax oo daryeel ama maamul degmo ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama hay'ad ha noqoto waaga ma hayno. waxaan ka mid nahay dadka lagu faquuqo ama faquuq kala kulmay maamulada dawladda iyo kuwa degmooyinkaba. waxaan codsanaynaa in si gaar ah naloo eego, waayo waxa isugu jira dadkan dad wax baran kara iyo ama dad wax bari kara. waxaa jira hay'ado oo waxbarasho keena wadanka, dad xay oo lugooda qaba waxbarasho in loo furo oo mobile samays la geliyo oo ii sheeg waxbarasho gaar ahaaneed sida harqaamada domesticada intaba waa qabsan karaan dadkan, waana awoodaan haddii lagu laayihiin gacmaha qaar qaba. marka waxaan codsanaynaa in hay'adahaasi oo deeqda waxbarashada bixiya si gaar ahaana ay u soo garab istaagaan dadka naafada ayna faquuqin. faquuqid waxaan kala kulmaynaa hay'ad ha noqoto oo waxbarasho, hay'ad ha noqoto gargaar, kuwa maamul degmo ha noqdaano, gudoomiye degmo ha noqdo. wax noo yimaado ilaa hadda Macalin Cabdulle ka soko inta degmo maamul oo degmada loo soo xulay ama loo soo magacaabay waxna soo kor istaago oo noo yimaado war xaaladiina saa waa inay ma hayno. maxayse ku dhacday? waxa tusaaladii ku filan in aan nahay dadka lagu faquuqo ama faquuq la kulma naafa aan loo faquuqo. waxaa jira degmada dhowr waxa ku nool barakacyaal iyo naafo iyo intaba. war wax walba waa la kulma, annaga in la kulmo oo loogu yimaado xarunteeni alla aamin maxaa u diiday maamul kastoo yimaadaba ilaa Macalin Cabdulle ilaa hadda maamulkii la soo magacaabo wax noo yimaado ama si xaalkiin yahay waa laanahay. taasina waxaa idinku filan tusaalo in la faquuqayo. assalaamu calaykum wa calaykum salaam. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdisalaan Mukhtaar Maxamuud Abubakar, anigoo ku hadlaaya dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool ama ku dhaqan degmada Dharkiinley gaar ahaan xarunta Alla Aamin. dadka baahiyaha gaarka qaba ee xaruntan ama degmadan ku nool waxay u baahan yihiin waxyaabo badan. waxyaabahaas haddii laga saacido aan isleenahay waxbay ka bedeli karaan xaaladooda nololeed. waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah in laga saacido xagga xirfadda. maxaa yeelay waxay u baahan yihiin intooda badan waxay iskugu jiraan bulshada qaybaheeda ka mid ah dad waaweyn, dad yaryar, haween, caruur. marka qaybna waxay u baahan tahay waxbarasho sida iskuulaadka, farsamada gacanta, mobile sameeyowga, harqaan tolidda, waxyaabaha computer baridda ay u baahan yihiin dadka yaryar, iyo waxbarashada maadiga. dadka kale waxay u baahan yihiin xirfadda gacanta oo waqti dhow haddii laga saacido aan isleenahay xaaladooda waxbay ka bedeli kartaa. dad waxa ay jira oo u baahan waxbarashadooda in loo dhammaystiro. dad waxaa jira secondary dugsi sare ah, dad waxaa jira dugsi dhexe, dad waxaa jira dugsi hoos ka soo baxay. waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin dhammaystir. marka waxaan isleenahay cid allaal ciddii wax u qaban karta dadkan baahiyaha gaarka qaba. waxaan ugu baahannahay inay naga saacidaan nin allaal ciddii wax naga saacidaysa sida harqaamada, gabdhaha farsamada gacanta oo kale la baro, cilaansaarka, naqshadaynta. waxyaabahaasoo dhan haweenka ay u baahan yihiin iyo dadka ragga ah amase naafada ku nool degmada Dharkiinley ay u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah. marka intaas haddii la helo iyo in kale oo la mid ah, mideeda kale waxay u baahan yihiin gawaaridan oo kale baaskiiladaas dadka curyaamiinta loogu tirigalay. waxaa yeelay birarka oo kale ayaa ka mid ah waxyaabaha ay u baahan yihiin. marka intaasoo dhan in nagala saacido
dad alaala dadkii waxa la waxaynahay ee xaruntaas ay la soo xiriireen maamulkeeda waxaan kamid ahay maamulkeeda qaybaheeda ayaan kamid ahay marka waxaan is leeyahay cid alaala cidii codkeena uu soo gaaro oo wax ka bedeli karta xaaladan ay ku sugan yihiin dadkan waxa ay ku sugan yihiin xaalad aad iyo aad u qalafsan maxaa yeelay dadkan waxay kamid yihiin dadka la haybsooco Soomaalida waxaan ku aqaan jirnay markii hore qabaa'ilada in is haybsoocaan laakiin anaga hadda gaar ahaan waxaan ugu haybsoocay oo nagu leexi naafanimo marka naafanimada waxay noqotay dadka in lagu haybsooco oo shaqadii waxyaabihii qofka caadiga u baahanay aan si fudud ku heli wayn marka sidaas la ajligeed ayaa waxaan u baahanahay waxa cid alaal cidii ay qusayso oo bini'aadanimada u dhaaqda hay'adaha noqdaan dawlad ha noqdo degmaha noqoto maamulka gobolka wax alaal cidii u dhaqdhaqaaqda ama se ka damqanaysa dadkaani waxaan u baahanahay in ay soo gaaraan si degdeg ay u soo gaarsiiyaan wax alaal wixii ay awoodaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد حرمتن waxaa la yidhaha Al-Aamin waa xarunta naafada degmada Dharkeynley waxay dhisan tahay xaruntani muddo 7 sano ah intaaba waxaa isugu iman haysay naafada degmada Dharkeynley sida lagu yaqaan waxa u dhigantaa ugu yaraan 4 degmo way ballaaran tahay dagaaladii sokeeyana waa la isugu soo qaxay dib loogama laaban sida darteed waxa jooga dad dheeraada aad u fara badan ugu yaraan naafada isugu timaada in ku diiwaan gelino 370 ilaa 400 waa dhanna